in ka badan 10,000 oo dameer oo u badan lab ayaa lagu qalay oo lagu cunay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle tan iyo sanadkii 2021 ilaa iyo maanta oo ay ku beegan tahay 26 May sanadka 2022 waa hilib aad u macaan waa cadiin aan caadi ahayn waa nafaqo socoto oo caruurtii ayaa ku cayishay waa hilib aan oon iyo haraad lahayn waa sida ay qabaan dadkii cunay hilibka dameeraha ee Jowhar lagu qalay maanta yaa waaye dadka gowracayay dameeraha falkan foosha xun ee lagu cirbatirayo daabada ugu fiican ee Soomaalidu rarto si lagu ogaaday dhacdadan soo socotay dhowrka sano muuqaalo sir ah oo laga helay dad gacmaha kula jiro qalida dameero laba u badan dadka ayaa ka helay dhadhanka iyo macaanka sambuusigiisa kadib markii maqaaxidii ay isbursatay oo ka soo xirantay ayuu ku fikiray inuu ka faa'iideysto dameeraha tirada badan ee dadkii lahay ay dayaceen wuxuu furay kawaana isagoo markii hore ku bilaabay qalista looda iyo ariga markii ay meeshu bulaashay oo u kacday ayuu bilaabay qalista dameeraha